guddiga farsamada maamul dhisida dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta soo saaray jadwalka guud ee hanaanka doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Gudoomiyaha guddiga farsamada maamul dhisida dowlad goboleedka Galmudug Cabdinaasir Geelle Cilmi ayaa saxaafadda la wadaagay halka ay marayso hanaanka doorashooyinka Galmudug. laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha November ilaa 28 bisha November 2019 waxaan ka shaqeyn doonaa oo aan xoog saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Galmudug sidaan hore u soo baaqnana aan ka codsanay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta Arbacada oo ay tahay 27 bisha November marka qodobka labaad 29 November ilaa 30 December waxaan ka shaqeyn doonaa soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug 10 December ilaa 12 Decemberna waxaan ka shaqeyn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaan ka shaqeyn doonaa hadii alla idmo qodobka afaraad 13 December ilaa 16 Decemberna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada guddoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug qodobka shanaad 17 December ilaa 23 Decemberna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug hadii alla idmo intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iskajoolka noo degan laga bilaabo maanta 25 bisha November ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambaysa oo aan ku dooranayno madaxweynaha 23 December 2019 sidoo kale anoo fursadan ka faa'iideysanaya guddiga farsamada iyo maamul dhisida dowlad goboleedka Galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhaweynayaan ayna ka rajeynayaan maadaama in muddo aan sugaynay oo aan wax xayirnayn intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culimada ahlu sunna wal jamaa in ay arimahooda ku dhameeyaan wada hadal lana xaliyo wixii khilaafaad oo jira intaas ka bacdi waxaan mar kale fursadan uga faa'iideysanayaa in hay'adaha ammaanku ay shaqadooda qabsadaan kana shaqeeyaan sidii ay hore u soo shaqeynayeen sugidda amniga oo ay xil gooni iska saaraan xilligan lagu jiro kala guurka oo ay xaaladuna xasaasi tahay guddiga farsamada maamul dhisida Galmudug ayaa soo yeeray odayaasha dhaqanka Galmudug ee saxiixayaasha si loo gudagalo soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulka Galmudug waxaana lagu wargeliyay in Arbacada ay yimaadaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV Dhuusamareeb